ninkan brofesorka ingiriiska asii xaaskiisa way baxeen Greek ay holiday u aadeen kadibna waa la waayay ninkii 4 maalmood asigoo maqan baa waxaa la soo sheegay wixii ku dhacay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة ديسيتي ما في عندهين ما أنتوا حاربة أنا نيشاغو نين مجا عيسى هتعرف أفكي كوسو قاضي كرين وبقايا سرتو أسوق أنت حتى مسكين تاني تمس أقول جوكتو تبيبها جاغدا اللي وقفت مرة مركا وحاربة نينكا شكليس أنا نيجا شكيو أنا يقول مجا عيسى شيء نين كانيتو دتك إنجليز كي جوجو هدي شكلها مقلاوي فهمها يا نينكو يهي مركا نين كانيت بروفيسور إنجليزو أها هوليدي وحكو آذي جريجو كو آذي maalin maalmaha ka mid ah duhuradii buu soo baxay daladuu soo qaatay kula xunaa jiray duhurada meelahaas sida Soomaaliya kale waa wal nastaa laakiin wuxuu yiri lagu aadayo yiri daladuu soo qaatay banaanku soo aaday ninkii maalintaas dadku ugu dambeysay 2 saac ka bacdi ninkii waa la raadiyay reerkii markii ganaagtiisa ay weysay xaaskiisa ay weysay waa la raadiyay waa la soo waayay ninkii 4 maalmood waxa laga raadinayay buuraha Greek meesha ka tagan yihiin holadeedu aadeen wax kasta la sameeyay ninkii waa la waayay ugu dambeyntii helicopter la qaatay koraa meesha laga soo fiiriyay laba buur dhexdeeda ninkii oo meesha meedkiisa yaalo 4 maalmood kadib baa laga soo qaaday ma la soo sheegay ninka soo ku dhintay laakiin dadku waxay wareejinayeen in maxaa la dhahaa natural oo ku dhintay newska laga sheegay laakiin se dadka qaarkood YouTube-ka oo kusoo qorayeen review kusoo qorayeen email-ha ka hadlayeen waxay dhaheen ninkan waa la dilay ninkan dhowr sano ka hor dadku caawiri jirayo dadka sokorta qabaan dadka dhiigkarka qabaan dadka oo dhibaataysan oo jirooyinka yariiska qabaan buu wuxuu u sameyn jiray raashin inay isku daaweeyaan raashinku ku daaweeyaan raashin caadiga kan aad qaadatid waaye laakiin calorie counting la galayaa waxa la fiirinayaa wixii aad qaadanaysa miisaankaaga la fiirinayaa iyo waxa qaadanaysa la fiirinayaa maalintii ibn aadamka hadii loogu talagalay rag hadii loogu talagalay 2500 calories a day hadii loogu talagalay oo gabdhahan oo normalka ascaateedina 2000 loogu talagalay wuxuu ka dhigay waxaas dhan la soo damiyo oo laga dhigo 800 calorie yani wuxuu soo jaray nus half ka badan oo soo jaray marka dadka xataa ani waxa kamid ahay markaas oo newska sheegi jiray oo la boboonin jiray oo sheekada la waday dadkii ka faa'iideystay maalmahaas xataa aniga dietkaas waan galay waxa soo gatay book yar maraad tusinayaan book yar aan soo gatay calorie ka sheekeenayo calorie count sheegayo hal xaba bread hada qaado oo ambersid saliid ah meeqoo noqonaya ukun madka biyo ku karisid iyo marka saliid ku karisid meeqee noqonaysa waa ka faa'iideystay ani xataa maalmahaas targetka aan rabay xataa waa ku reach gareeyay oo ahaa maxal dhahaa inaan gooyo intaas oo kiilo marka dietkiisa waxaa la dhahaa 800 calorie diet la dhahaa oo lagu rabo in dadka cudurka oo iskaga baabiyo socda ku dareey biya ku dareeysa ina cabtid socodna waa ku dareeysa marka waxaad gaaraysaa adiga meeshii adiga aad jecleed ina gaarto marka saaxiibayaalow ninkaasi tood problem uu keenay inuu dhinto waxa waaye dadkii oo waxa la yiri meesha loo xanta lagu soo qorayay review-ga lagu soo qorayay dadka waxay dhahayeen ninkaani tood kaasa loo dilay meesha newska caadiga ay ka soo dhahayeen natural ku dhintay nolol caadi ku dhintay dhahayeen laakiin dadka review-ga youtuberada meelaha ku soo qorayeen waxay noqotay sheeko weyn laga sheekeeyo noqotay waxa la yiri ninka waa la qaarajiyay waxa loo qaarajiyay waxay ahayd kombaniyada waaweyn oo ingiriiska degan baa waxay ka baqayeen in la joojin doono daawooyinka loo isticmaalo cudurradaas oo dadka ka joojiyay because dadkii caafimaad ay heleen daawooyinkii ka hareen waxay bilaabeen inay raashinka iska yareeyaan inay biyo cabaan raashinka iska yareen ma ahee intay cuni jireen maxaa la 3 dilo dhigo 2 dhig inay ka tagaan dhig cunaan bay maxaa la dhahaa caafimaadkooda dib ugu soo noqdeen okay marka baqtin laga baqaayay professorkan heerku u gaaray dadka inuu maxaa la dhahaa oo saan ay ugu soo saftaan oo maxaa la dhahaa oo warkiisa ay yeeleen ugu dambeyntii hadduu saan ku sii socdo waxa la gaarayaa daawooyinka in la iska wada daayo stop si loo socdo daawooyinka la joojiyo daawo haddii la joojiyane dadaa ku taajiray dadaa maxaa la dhahaa adduunyadaas marsaday marka dadkaas waxay noqonaysaa kambaniyadooda inay albaabada u xiraan daawadooda wax dambe iibsanaya ma laha saas awgeed baa ninkaanitod loo qaarajiyey marar qaarkood way dhacdaa dadka qaarkood haddii oo afkaaga dheer yahay ama gacantaada dheer tahay ama cilmigaaga dheer yahay haddii aas waawaashid waa lagu qaarajinaa waxaa lagu qaarajinaa wax kalena ma aha dadkii baa waxay dareensan yihiin iimaan daradooda waxay dareemayaan
in oo maxaa dhahaa noloshooda ay isdhimayso hal qof kaliya oo ibni aadan wuxuu sameeyey inay maxaa la dhahaa businesskooda uu ku istaagayo ay ku xeesmayso mararka qaarkood waxaa loo maahaya afka inaad sas u xiratid oo iska aamustid oo rabbi subxaana watacaala isku xirtid oo ummadaaneetood wax qasqasaysane aana isku gashan lugta hadda xataa daas waaya maxaa la dhahaa aan magaciisa aan iigu soo qaadi la'ahay afkayga uu ka noqono inay uga soo fakado magaciisa wax kusoo qaadi la'ahay waxaa waaye naftigayga cabsidaas ay gashay marka dadka ingiriiska ila joogo ama dadka wararkan oo camal dhegeysto noocyadan way la socdaan ninkaasiitod ninkii waa dhintay alaa ii xaal dowladdeena waa la cover gareeyay waxay ahayd waa la soo qaarajiyey nolosha markaa marka qaarkood u fiirsata waxaa u malaysaaba filan hindi aa fiirsanayso kalentad sababta ah qof dhan ibni aadan oo noloshiisa heer gaaray oo wax bartay oo adduunya soo fatashay baa daqiiqadaasiitod loo qaarajinaa tiisay ahayd way u qorneed wuu dhintay ummadda ilaahay wuu soo caawinay laakiinse intaas ka bacdan waa kusii badan waaye marka saaxiibayaal intaasaa raba inaan ila wadaago intaanan bixin aanan doonay wiilka ayadu ah aanan iskoolka ka doonin intaasaan ila wadaagaye rabbi subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay noo wada naxariisto idinka annaga waalidkeen waalid muslimiinba ilaahay jannata firdows aclaa raxmadiisa noo nugeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu